Thank you. reerkayga hore kugu dambeysay sanadkii hore waxaa laga yaabaa laakiin bishii soo socoto inaan la soo boqdo safarkaada ka waran alxamdulilah maasha allah safar dheer ayaan soo galay hadda daalka waa iga ba'ay sorry airport inaan kugu imaadaan rabay laakiin maanta sidii exam ayaan lahaa aada dhib ma laha aada mahadsantay iga waran imtixaankaadi yeah it was good last semester aan ku jiraa hadda shaqada iga war adiga maasha allah wax walba okay hooyada ayaan arkay shalaydo zaaid bay u faraxsanay inay imaanaysid maxaa ka farxadnayd maalintii aan u sheegay inaan isguursanayno hooyay mar walba isoo waxay dhihi jirtay gabar fiican ayaan ku helay anna waxaan ku dhihi jiray inaan maray hooy aroos diyaar u leeyahay then markay iisoo direen sawirkaada ma malaysan karta saan isu bedelay I remember habeenkii dhan waan seexan waaye waan soo jeeday waana habeenkii aan ogaaday inaad artiskasa aada u jeceshahay see ku ogaatay anigu ma sheegane waxaa tahay qofka aan guursan raba oo ku qasbanahay inaan ogaada wax walbaad jeceshahay Facebook ayaana ka arkay waa ilowey iga raali noqon telefonkaan qabanaya hal mar hi maya weli maya wallahi anaa kusoo wacay waxay ready I promise okay after he leaves okay bye wow I mean artist saaid ayaan uga helay sawiradiisa murti badan ayaa ku jirta saaxiibadeyda ayaa haddii ahaan igu keentay Samiira somahan sidee ku garanaysaa Facebook ayaan iska baranay mar walbaan is aragnaa wanaagaada iga sheekaysaa waa gabar fiican adigani waa iga fiican tahay saxaabtay oo dhan dadka dhan aqaanta dhib ma laha saasa dhihin dhammaantooda way ka helaan markii aan sawirkaada tusay saaid ay uga farxeen waxay nagu dhaheen maasha allah reer fiican ayaad leedahay haddii ayba gabadhan ku dooqeen cadaan arrin ayaan rabaa inaan kuu sheego caadi ma sheegi kartaa ii sheeg haye hadal waa maxay arrinta wax dhib ma jira
waan gartay maxay dhirtaa miya aan isbarana dib u dhig arooskeena haddajin caadi ana wax walba aad ku faraxsan tahay waan yeelayaa wax ma sameynayo wax aad ka hormaadsan tahay ma hasas arintaas ma ahan haye waa maxay ii sheeg waa maxay arinta 4 sano ka hor waxaan xiriir la lahaa wiil joogo Dubai waxaan ku xiriiri jirnay Skype-ka waqtigaasna waxaan jiray 16 wax walba waa yaraa way la fududaan wax walba sahlan jiray maalimaha kamid ah waxay soo wacday saaxiibadeyda iyada oo murugo badan codkeeda ka muuqdo ay ugu tiri video ayaan arkay YouTube-ka ku arkay oo ku jiro aniga iyo wiilka markaas aan la socday aniga weligeyga kuma fikirin inaan video iga duubayo wax walba aan ka hadalno oo wada sheekaysan jirno laba ruux isla socotaan ahayn laakiin markaan weydiiyay wuxuu igu yiri laptopka ayaa la iga haday qofkii xaday laptopka ayaa soo galiyay reerka ma u sheegtay mayo uma sheegin waan ka baqay laakiin dadka kala banaanaha ay ka maqleen aan zaid ayaa ugu xumaadeen kadib aaba internetka ayuu guriga joojiyay anigu iskuuliga joojiyay waxaan zaid uga margoodeen mustaqbalkayga iyo guurkayga kadib hooyo waxay u tiri waad weynaanaysaa wajigaaga ayaa isbedelaya qof fahmaya malaha laakiinse videogaas weli youtube ayuu ku jiraa laakiinse waa maxay sababta sidaan dhan daacadnimada waxaan dhan igu sheegaysa sababtoo ah waxaa tahay qofkaan isguursanayna waana inaad ogaataa labadan armood waa maxay arrinta kaleetana ani markii hore waxaan zaid ugu marki jiray ma ka shilayn jiray waxay ugu dhacay wax walba ay bulshadii dhahaan laakiinse hadda waxba kama murgeen videogaas waxaa ka muhiimsan nafsadeyda ma garanayo waxaan dhahaa waa runtaada aniga waxaan wax walba aan kugu sheegaya waa inaa ogaataa wax walba aniga igu saabsan go-aankana adigu go-aantaa ku jira